helo 10 kun oo qof oo haday saxiixayaal oo ay saxiixaan nidaamka sharciga hadda la ansixiyay in wax laga bedelo dib loogu laabto in barnaamijkaasi suurto gali karo inaan wax ka bedeli karno sharciga oo dib loogu celin karo baarlamaanka qodobadaas ilaa 1 milyan lambar milyan 1 milyan gaariyo qof Soomaaliyeena muwaadiniin Soomaaliyeed inaan sharciga wax ka bedeli karno oo nidaamka BR ku noo suurto gali karo hadaan awooddaas helno iyadoo laftigeeda hadda civil society iyo xisbiyada arintaas iska kaashanayay waxaan awoodnay abaabul inaan barnaamijkaas sidii aan ku hirgelinay inaan qabano xitaa waan rajaynaynay inaan maxkamadda sare laftigeeda aan u gudbino hadaan dadkaas helno oo aan mataqaana shuruuda sharciga aan soo buuxino ana maxkamadda sare u gudbino oo maxkamadda sare aan dhahno arintan intaas oo qof muwaadiniin Soomaaliyeed sharciga ka soo horjeeda sharciga dib loo fiiriyo dib loogu laabto taana waan qorshaasna waan wadnay laakiin anaga mar walba wixii xalku ku jiro ka xisbiyahan ama mataqaana higsiyan diyaar baan u nahay inaan mataqaana aanu maxay ahaayeen ka qayb qaadano laakiin sharcigan hadda la ansixiyay labada aqal ansixiyeen madaxweynuhu saxeexay ma aha sharci ummadda Soomaaliyeed dan u ah qaranimada Soomaaliyeed dimuqraadiyadda Soomaaliyeed dan ugu jirto ma aha dawladana maanta waanu ka xunnahay kamana filanayn iyadoo 3 sano jirta inay nidaam 4.5 maanta waqtiga gabagaba yahay inay sharci laga wada doodo oo sharci laga wada doorashooyin waxaan wada ogsoonahay dawladdii 2016 baarlamaanka la soo doortay qorshihii lagu heshiiyay waxay ahaayeen in 2 sano markay baarlamaanku gaadho in xisbiga ay ku kala biiraan tiimaysan fulin sharci 2018 shirkii Baydhabo ka dhacay waxa lagu heshiiyay in nidaamkan close listiga BR-ka doorashooyinka soo socda 2020 in dalka doorasho lagu galo isteediyada federaalku saxay